beesha majeerteen ayaa aad uga xanaaqday hadalkan sidoo kale la yaab iyo fajac ayay ku noqotay shacabka Soomaaliyeed kadib markii safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu beesha Cismaan Maxamuud ku tilmaamay jareer laga keenay Zanzibar isaga oo tusaale u soo qaatay muuqa Saciid Cabdulaahi Deni iyo rag kale oo beeshaas ka dhashay arrintaas oo hadalhayn weyn ka abuurtay baraha bulshada. haddaba warbixintan waxaan ku soo gudbinaynaa hadal kale oo ka soo yeeray safiir Tarsan kadib cadaadis xoogan oo la kulmay. marka hore daawade muuqaalka like saar sina share garay. danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya Nairobi Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka hadlay muuqaal laga duubay oo ku baahay baraha bulshada kaas oo ga hadlay arrimo xasaasi ah oo ka dhan ah beesha majeerteen gaar ahaan jufada Cismaan Maxamuud. danjire Maxamuud Axmed Tarsan ayaa sheegay in beeshaas ay tahay jareer isla markaana laga keenay Zanzibar isaga oo tusaale u soo qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo rag kale sida uu ku yiri codkiisa oo laga maqlayo muuqaal laga duubay oo qof kale wareysanayo. Cismaan Maxamuud oo dhan waa wada jareer Zanzibar ayaa laga keenay waa run war eeg Deni ayuu ku yiri muuqaalka laga duubay safiir Tarsan. safiirka Soomaaliya Kenya Maxamuud Axmed Tarsan ayaa qoraal uu ku soo daabacay barta ku leeyahay Facebook wuxuu soo saaray ka hadlay arrintaasi wuxuuna qiray inuu hadalkaas uu yiri kaas oo dhibsatay beesha Cismaan Maxamuud. anigoo ah danjire Maxamuud Axmed Nuur waxaan si buuxda raaligelin uga bixinayaa hadalka baraha bulshada la wareejinayo oo ah mid aan u iri ayuu qoraalkiisa ku yiri Tarsan. sidoo kale wuxuu raaligelin buuxda u siiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo Boqor Muuse iyo guud ahaan beesha Cismaan Maxamuud oo uu ka raaligeliyay hadalkaasi. qof kasta oo dhibsan kara ayaan si niyad ah uga raaligelinayaa gaar ahaan beesha Cismaan Maxamuud Boqor Burhaan iyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni ayuu sii raaciyay qoraalkiisa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan safiirka Soomaaliya ee Kenya. hadalkan ayaa si weyn ugu faafay baraha bulshada waxaana ka falceliyay dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood sheegay in arrintan ay kaftan tahay halka kuwa kalena aad uga caroodeen. macada in beesha Cismaan Maxamuud oo safiir Tarsan ku tilmaamay jareer laga keenay Zanzibar ay ku qanci doonaan raaligelinta uu maanta bixiyay. dad badan ayaa dhanka kale isweydiinaya dowladda Soomaaliya tilaabo anshax marin am ka qaadi doontaa safiir Tarsan maadaama uu gafay beel Soomaaliyeed.